dalkan haddaan amnigiisa laga shaqeyn inaa waxba laga qaban karo wax development inaan la samayn karin service delivery inaan la samayn karin waxba lama qaban karo intaan sheegayna hadda state buildingku inoogu socday oo dhan oo constitutionku number 1 ka yahay waxba lagama qaban karo planninka waa joogaan iyo qolooyinkii maaragtay macadkii iyo kulli oo dhan xataa dadka ma tira koobi karaan marka dowladdeenu waa inay focus ka saarto nimankaas in lala diriro oo dagaal lala galo marka qof walba iyo hay'ad kasta meeshay ka leedahay waxaa la rabaa inay dagaal kaga jirto oo ka gasho oo ay ugu muhiimsan tahay inuu alert yahay qofku oo og yahay horta inuu dagaal lagu jiro oo dalkii uu dagaal ku jiro oo asaguna uu madaxdii dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay waa inaan ognahay marka waa inaan dagaalkaas gallo marka guud ahaan shacabkeenu dagaalkaan maynu galo waxaan rabnaa in koone ka goone haddii ilaahay yidhaahdo insha allah in soomaalidu ay iyadoo dantooda ka fikirayso inay shaqadaas qabsadaan ay waddankooda xoreeyaan oo haddaan taas dhicin hadda waad ogtihiin abaaraa taagan culays baa taagan xoogaa yar oo la helay oo raashina qaab loo gaarsiiya dadka xatal ma laha jidadka waad ogtihiin nimankiina fadhiyaan diyaaradaha waxay noo yihiin xal ayay noo noqdeen wax kastama diyaarad baa xallin karta meelaha qaarkoodna airbase maba laba airspace ma leh oo waad ogtihiin oo diyaarada kuma wadegi karaanba marka diyaarad xal ma noqon karto marka diyaarad waxay gaareen ilaa iyo waad ogtihiin imtixaanaadkii wixii ka jiray hadda waa nolol aad iyo aad u adag oo dad gob ah aysan ku jiri karin runtii amniga xumadana keenaya wiilal yaryar oo meelahaas ku fadhiya oo aad u tabar daran ayaana waxaas abuuraya marka waxaan u baahannahay markan waxa kaloo dhan waa ka shaqaynaynaa dowladda qaybaha kaloo dhan laakiin waxaan focus garayn doonaa haddii la yidhaahdo oon resource-keenna oo dhan aan rabnaa inaan isugu geyno wax badan oo ka mid ah sidii nimankaas laysu dhaafin lahaa oo dalkan loo xoreyn lahaa